wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha waxbarashada ee telefishinka Tusma TV oo toddobaadkan idinkaga imaanaya iskuulka Tusma Primary Secondary School oo ka mid iskuulaadka ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. barnaamijka madasha waxbarashada ee telefishinka Tusma TV adigoo magacaadu ku bilaabaya Tusma Primary Secondary School galaaska dhigata magaca waa Sis Maxamed Ibrahim waxaan dhigtaa iskuulka lagu magacaabo Tusma Primary Secondary School waxaan ay galaaska 8aad imise maada ay qaadataa 8 maado maadada si gaar u xiisaysaa adiga Science and Technology maxaad ku dooratay science hadan ka hadlo marka dugsiga sare ka qalin jabis shaqo ahaan markii aad barato maadadaas doctornimo macmal u noqon kartaa doctor ayaa rabtaa mustaqbalka noqotay sax aad weyn ardayda inta badan waxaa lagu cantaa in aysan wax akhriska ay ku liitaan oo markii imtixaanka la gaaro oo maadooyinka dul koraan ay wax akhris ay bilaabaan adiga timetable ma leedahay in badan horta way jiraan maadooyin ugu adag saas ay taa macallimiinteena la garab taagan oo xiisad walba su'aalana la daba taagan ay macallimiinta maadaama su'aalo kula daba taagan yihiin adigana aad maadooyinka ugu adag aad noo sheegtay in aad sidii aad kaga soo kabaleed aad ku dadaashid sidee maadooyinka aad u xalisaa maadaama oo imtixaanka inta la gaarin ka hor ardayda la yiraahdo wax akhriska ma bilaabaan imtixaanka ay la bilaabaan adiga maadooyinka jadwal ma ku leeyihiin oo ma ku habeen walba ma kuwa akhrisaa mase asxaabta waxa ku jirta marka imtixaanka la gaaro kuwa akhriyaan ku jira ardayda timetable aan lahayn ee saaxiibada iyo guud ahaan ardayda Soomaali ee waxbarashada ku mashquulsan ee ku guda jira maxay tahay adiga baaqa u diris waxaan leeyahay waxbarashada ha lagu dadaalo mustaqbalkaaga dambe waxbay ku taraysaa ma dadaalina adamudan waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka madasha waxbarashada ee telefishinka Tusma TV Tusma Primary Secondary School galaaska dhigata magacaygu waa Muuse Nuur Ibrahim oo ku dhawahay barnaamijkan waxaan dhigtaa iskuulka Tusma Primary Secondary School waxaan ahay fasalka form 1 ayaa dhigataa Muuse imise maada ay qaadataa waxaan qaataa 10 maado 10kaasi maadada si gaar u xiisaysaa waxaa xiiseeyaa maadooyin kala ah physics iyo xisaab maxaad ku dooratay
sababtoo ah hamigayga ayaa inaan noqdo engineer labadaas maadan waxay qusayaan engineerka markee maadadii ama facultigii aa ku takhasuleed marka jaamacadda aa gaartay hadda ayaa go-aanka sii gaartay miya go-aankayga hadda gaaray maadooyinka oo waxaas i fududey lahayna waa labadaas maado sababtoo ah hamigayga ayaa inaan noqdo engineer labadaasna waxay qusayaan engineerka ardayda waxaa lagu xantaa in timetable inta badan aysan lahayn inuu wax akhriska ay bilaabaan imtixaanka markuu soo dhawaado adiga maxaad kaga duwan tahay ma kuwaasaa ku jirtaa mise timetable waa leedahay timetable waa leeyahay horta ardayda qaarna way leeyihiin qaarna ma laha sababto qaar kale timetableka waxaa loo samaystaa horta qof oo hami laha samaysta timetableka qof iska socdo timetable ma samaysanayo qof jabigiisa uu degan yahay jadwalka hadduu u degan yahay wuxuu naqalaya waxaas dhan u degan yihin aa timetableka samaysto ana hamigayga ahayna engineer noqdo timetablekayga iyo wixayga dhan waa ii degan yihiin marka dunida haatan waa digital sidoo kale teknolojiyada horumartay laakiin faa'iido iyo khasaare labada waa wadataa ardayda inta badan macallimiinta waxay ku xantaan in social media ay ku dhafraan suuxii galaas ka yimaadaan iyagoo dhafarkii oo ka muuqdo social mediaha adiga sidaas ku tihiin imise saac ayaan isticmaashaa social media badanaan saas ma ugu badnay sababtoo ah hadda aniga dugsi sare ahay mashquul badan maadooyinkayga inaan akhriya ku mashquulaa sababtoo ah qof oo hadda dugsi sare ahay dugsi hoose mihii shaqana hadda ii bilaabatay horta iyo dadaal hadda la iga baahan yahay hadda daa dadaalin hadhow dambo qof heer gaaray ma naqanay dadaalkayga hadda wadaa social media badanaan saas ma ugu badnay maadooyinkayga ku mashquulaa ardayda inta badan waxaa la arkaa in ay gaar ahaan dhalinyarada in marna iskuulka ka soo daahaan mara loo gooyo gurigiin aan la jirin iskuulkiina aan la soo jirin soo daahitaankan uu badan yahay gaar ahaan marka la yidhaaha dhalinyarada jiilba jiilka ka dambeeyana waa kasii dambeeyaha la yidhaha adiga shanta maalmood ee galaas iskuulka la dhigto ma jiraan maalimo iskuulka aad imaanin mise waad soo xaadirtaa inta badan xiisooyinka iskuulkan ani saa u soo galay boorta hal maalin xitaa ma gambinin iskuulka maalintii ugu horreysay ilaa hadda saana u taaganahay weligeena ma gambininbo haddana ma rajeynaya inaa gambiyo ardayda oo iskaga gambinayaan soo daahayaanna waa arday caajis badan caajiskaasna iska qaadaan ee si horumar ku gaari lahaayeen ka fikiraan maanta haddii ayaga horumar gaaraan iskuulkooda horumar gaaray waaye ayaga haddii horumar gaarinne iskuulkooda horumar ma gaaraya iskuulna ardaya wax u qaado kor maayan asina isku qaado ardaydiisaa kor u qaadi karta ardaydiisaa noosoo dhigi karto ase hadduu soo daha ama oo iskuulka uga gambiyo asina sharaf xume u tahay waalidkiisa sharaf xumo iskuulkana sharaf xume u tahay iskuulka haddii wax laga barta xitaa ardaygaas la arka waxaa loo maleynaya iskuulkaas in wax laga baranin oo iskuul oo lisxiisanin oo ahayn oo lacagtaas le laga fiirsanayo ee tahay laakiin ma aha iskuulkeena saas badanaan ardaydeena ma aha arday soo dahdo ma aha arday gambiskiis ma badna waxbarashadiis way wanaagsan tahay aadaab iyo akhlaaq iyo aqoonba way taalaa maasha allah waanu ku faraxsanahay iskuulkayga macallimiinta qaar waxay dhib ku qabaan ardayda in ay la murmaan ay xushmaynin adiga maxay tahay fariinta u diraysid haddii ardaydaasi aad qayb ka heenoo macalinkaada aad xushmaysid maadaama macalinka la yidhi waa aabbihii labaad fariinta u diraysid guud ahaan ardayda soomaalida kuwaas galaaska tihiin saaxiibada iyo dhammaan ardayda soomaaliyeed ay waxbarashada guda jira dhammaan ardayda oo macallimiinta la dagaalayaan waxaa fariin ugu diri lahaa macalinka horta aabihii labaad waay akaada almucallim an yakuuna rasuulaa inuu noqdo rasuul macalinkan wuxuu waalidkaaga xishmad uu kaa mudan yahay xishmad lamida uu kaa mudan yahay maanta haddii asala dagaashid aqoonta ku jirta xitaa dad haddoo mar macalin ku qaadane aqoonta ku jirta xitaa si fiican ma ku siinaayo sababtoo calooshiisa aqdad gelisay marka waxaa ardaydaas kuwaalin lahay macalinkaaga adaa wax walbo aqoon walbuu leeyahay adaa keensan karo adaana isku diidi karo macalimiintooda inay xishmeeyaan macalimiintooda ee aqligood ay kaashtaan si ay macalinka aqoonta maanta uu leeyahay ee agala wareegi lahayn maanta macalinka saan ma u taagnaanayo beri maanta haddaa laakiin aad u xumaysid oo aqoontiis qaadabaysi beri booska ayaa bedelayo haddaa adin maanta ma laha marka waxaa rajeynaa ardayda dabeecadaas leh oo macalimiinta la dagaalaya inay iska bedeli doonaan insha allah oo maanta ay ku dadaali lahayn macalinkaaga booskoo taagan yahay beri adi inaa istaagto insha allah taalahaasaan ku waalin lahay adaa mudan waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka madasha waxbarashada ee telefishinka tusma t v adigoo ku bilaabay magacaada iyo galaaska aad ka dhigtid iskuulka tusma primary secondary school bismillaah anigoo cadar nuux axmed waxaan dhigtaa galaas fooman imise maada qaadata
كويتون مادو maadooyinka xiisaysa adiga بايوكيمستري biochemistry maxaa ku dooratay هو بيجيجا waan gartay timetable ma leedahay adiga mase waxaad ku jirtaa jameecada imtixaanka markuu soo dhawaado wax akhris تان بلا يدكسن saaxiibada timetableka aan lahayn xilliga imtixaanka wax akhriyo maxay tahay adiga fariinta u diraysa maadaama adiga timetable aad leedahay oo maadooyinka iska kaa dul korin oo xilli hore aad sii diyaar garowdid waxaan leeyahay cashirka intuu uu markaas bisili hal aqrin karaa haddii mar casharada ay isku tagaanne waxba kama gaarto waayo wax xilli imtixaanka uu soo dhawaaday wax aqris waxba kuma tarayso inaa marka hadda sii dadaashid wax kaaga fiican ma laha macallimiinta waxay dhib u qabaan social media ardayda leeyahay iyadoo wanaag iyo xumaan labadaba uu leeyahay oo dhanka waxbarashadana looga faa'iidaysan karo haddana in waqti badan ay geliyaan habeenkii oo ku dhafaraano subaxii galaaska yimaada iyagoo dhafarka oo ka muuqda social media haddaa isticmaashid adiga habeenkii imase saacadood ayay kugu qaadataa isticmaalka kuma daahorun ahaanta aniga waxay ugu qaadataa maqribadii ilaa iyo 3 saac xilli hore ayaan ka baxaa ardayda waxaa jira qaar macallimiinta aan xushmaynin inkastoo ay jiraan arday macallimiinta qadariya macallinkan waxaa la yidhi waxaa ku sigtay in rasuul oo noqdo sidoo kale waa aabbaha labaad ardayda dabeecadaha sidaasoo kale macallimiinta kula dhaqmo maxay tahay fariinta u diraysa waxaan leeyahay macallinka waa aabbaha labaad maanta wuxuu ku taagan yahay booska aabaha labaad waayo dhankiisa ayuu kaa barbaaranayaa wuxuu joodi iyo dadaalba usoo geliyay inuu adiga tacliinta iyo waxbarashada isaa dalkaaga u difaaci lahayd oo horumar kuu gaarsiiyo marka waxaan leeyahay macalinka si wanaagsan halala dhaqmo yaan lagu aficilin waa aabaha labaad mar waliba gabar ayaa tahay waxaa jira gabdha xaafadaha jooga oo aan waxbarashada aan ku lug lahayn aaminsanna ereyga kusoo laalato mar walba la yihahdo gabar jika u dambayso maxay tahay maadaama dumar tahay fariinta u diraysid taasi run ahaantii horta waa been waayo hal gabar wax baratay waa bulsho dhan oo wax baratay gabadha waxay kaa kaafin kartaa dhan walba waxbarashada waayo waxbarashada wax ka fiican malaha haddii aadan ahayn qof wax aan baranin waxaa tahay qof qol mugdi ah ku jiro qofka markuu qol mugdi ah ku jiran waxba ma arkaayo ilaa ma leerba uma daarna marka maskaxdooda dumarka ay ku jirta jika u dambaysa waxbarasho kuma wanaagsan maxay tahay adiga waxaa leedahay inay wax bartaan iyo ku baraarujinaysaa haa taasi waa fikrad xun ay niyadooda ka saaraan waa inay niyadooda ka saaraan ay usoo dhaadhacaan dhanka iyo waxbarashada waayo waxbarashada wax ka fiican ma lahan waxayna ku shidaysaa nolosha iftiinkii nolosha aad waa mahadsantahay waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka madasha waxbarashada ee telefishinka tusma t v tusma primary secondary school galaas ka dhigata waa dhawaa magacayga waa ilyas cabdikariim galaaska dhigta waa foowan ilyas adigoo codka sare u qaaday imise maada ay qaata waxaa qaataa 10 maado ilyas 10ka maadada si gaar u xiisaysa adiga 2 maado jeclaa labadaas maado xisaab iyo physics maxaad ku dooratay waxaa ku doortay waxay ka saacidayaan inaan noqdo engineer mustaqbalka maxaad rajaynaysaa engineer inaad noqotid waa arrin aad u wanaagsan waxaan ku rajaynaynaa in aad ku guulaysan doontid dadaalkaada jadwal wax akhrisa ma leedahay mase ciyaar iyo football iyo waqti inta badan gelisaa oo imtixaanka markii la gaarmay wax akhrisa mase timetable hadda leedahay timetable waa leeyahay waxna waa akhriyaa habeenadii kale maxaa qabataa habeenadii waxaa akhriyaa timetable ay degsan subaxdii oo kale timetable ay degsan soo xairtaanka galaaska iskuulka si aad isku tihiin miyaad ardayda inta badan daahitaanka cadaystay miyaad ka mid tahay mase waqtigii iskuulka maamulka oo cilaamiyey waa soo xaadirtaa inta badan waqtigii oo macalinka iyo cilaamiyaa soo xaadira waqti walba oo ardayda soo xaadirana waa soo xaadira inaan aad u daayaraaya tahay social mediaha si aad isku tihiin adiga ciwaan ma leed horta social media waa isku fiican horta maanta waa maanta ugu koowaad social media ka hadlo caabada markaad joogto habeenadii facebook imo whatsapp adiga ma isticmaashaa may aaladahaas kuma may haye waxaa jira inaan dhan daa'ir waa tahay arday macallimiinta aan ixtiraamin oo macallimiinta xoogaa isku taago macallimiinta xiisada inay carqaladeen isku dayo adiga kuwaasi ma ku jirtaa mise adaad ku jirin ardayda sidaas sameeya maxay tahay fariinta u diraysa ani ilaa hadda macallin is dagaalin alxamdulilah ilaa hadda macallin iga sheegtan ma arkin ardayda oo macallimiinta isku taagan waxaa dhihi lahay macallimiintiin ma macallimiinta oo waxaan soo bara adigoo ba ta ka siinina waxaa soo gashay iskoolka waxaa baratay ba iyo ilaa zad ilaa iyo baratay aadan waxa ku aadina ina macallinka ka sheekanin
insha allah. kuwa iskuulka u gooye dhaxdaan ka baxay iskuulkiina aan jirin xaafadiina aan jirin waalidkana qarash oo ka bixinayo ee aan fahansaneen waxbarashada micnaheeda oo asaagaad oo kale maxay tahay fariinta kula dardaarmaysa kuwaasoo camal waxaa u dardaarmayaa inay wax mustaqbal yeeshtaan oo wax bartaan ilaa cimriga insha allah. ilyas aad waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka madasha waxbarashada ee telefishinka tusma t v tusma primary secondary school adigoo ku bilaabay magacaada galaaskee ka dhigata بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعد افتح عمران عيسى وأنا دوهي waxaan dhigtaa iskuulka tusma primary and secondary school waxaan ahay galaaska sideedaad imise maada qaad waxaan qaataa 8 maado maadadee si gaar u xiisaysaa waxaan u xusayaa xisaabta maxaad ku dooratay waxaan ku doortay waa hooyada sayniska waa maadada adduunka mustaqbalka miyaad doonaysaa in engineer aad barato insha allah hadda ilaahay ii sahlo waxaan rajeynaa inaan noqdo engineer waan gartay ardayda waxaa lagu xantaa in aysan casharada waqti hore aysan aqrin oo markay isdul koraan imtixaanka maamulka oo ilaamiyo waqtiga la gelayo in markaasi ay bilaabaan wax akhriska adiga ma ka duwan tahay ardayda sidaasi sameeyo oo timetable ma leedahay waan leeyahay in badanna macallimiinteena waa nagu dardargeliyeen waxayna noo sheegeen sanadkan imtixaanka inay dowladda qaadayso wax badanna waa diyaargarownay insha allah waxaan rajeynaynaa intaan in ka badan inaan sii diyaargarowno qaar ka mid a ardayda waxay isku dayaan xiisadda ay arqaladeeyaan oo macallinka ay ka arqaladeeyaan oo isku taagaan macallinka adiga haddii ardaydaasi aan ka mid ahayn oo sidaasi aan samaynin laga yaabay in saaxiibada ay sameeyaan maxay tahay dardaaranka u diraysid waxaan u dirayaa inay dhaqankaas iska joojiyaan dhaqankaas waa dhaqan xun ilaahayna wuxuu yiri macallinka wuxuu ku sigtay inuu noqdo nebi marka waa aabbaha labaad ee iskuulka ku joogo waa qofka ku barayo tacliinta mustaqbalkaaga waa qofka heer ku gaarsiinayo waxaa laga rabaa inaad xushmaysid sida isku tihiin social media ma isticmaasha adiga ma social media ma isticmaalo facebook whatsapp waxaa soo maba kasay si loo isticmaalan waan gartay arday waxaa jirta iskuulka ka soo daahay ee caystin ay soo daahaan sidoo kalena ay qaarkood eeban iskuulka soo xaadirin oo gurigeena ay jirin iskuulka jirin meel dhaxa ay ku maqan yihiin waalidkiina qarash oo bixinayo iyadoo aad ka warhaysid xaaladda waalidka oo lacagtaas iskuulka kaga bixinayo oo ku keenayo saaxiibada ama ardayda sidaas sameeyo arday dhalinyaro tahay wax baranayo maxay tahay baaqa fariinta u diraysid waxaan u dirayaa taas waxaa lagu kasbadaa habaar iyo il waalid marka waxaa u sheegaa inay iska joojiyaan waxaa loo soo diraayo waa mustaqbalkooda maaha in shaqo loo dirsanayo intaa yartiin wax bartaa lalahay anagaa wax kaa dhiibeen waxaa laga rabaa inay si wax waa jaanis weyn inay wax si fiican u bartaan oo mar dambena soo mari doonin ee si fiican wax u bartaan si ay mustaqbalkooda heer u gaaraan hadhowna waa lagu tashanaa hadda meesha waxaad laga baro waxaa laga rabaa hadhow inaa waalidkaaga wax u tartid xajka inaa geysid hadhow inaa ka duceysatid aa laga rabaa marka waxaa u sheegaa inay wax bartaan waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka madasha waxbarashada ee telefishinka tusma t v tusma primary secondary school adigoo ku bilaabay magacaada galaaska ka dhigata bismillaah wasalaamantiin waa dhowahay waxaa dhigtaa fasal magacaygu waa sacdiin maxamed cismaan waxaa dhigtaa fasalka sideedaad saabirin mise maada qaadato 8 maado maadadee si gaar u xiisaysaa adiga saynis iyo cilmiga bulshada maxaad ku dooratay maadada cilmiga bulshada waxaa waaye bulshada dhexdeeda wax walba laga hadlaayo iyo taariikhooyinka dhan ee wadamanka soo mareen saynis sidoo kale waa caafimaad iyo cudurrada lagu kala barbarto wax dhan mustaqbalka maxaad rajaynaysaa haddii aan wax kaa weydiin kastoo dugsi dhexaa maraysid oo dugsigii sare uu kuu dhiman yahay laakiin wax walbooda tiri waxaa la yidhi waa gaaban yihiin maxaad rajaynaysaa mustaqbalka inaad noqoto mustaqbalka waxaan rajaynayaa doctoreyso waxaan ku rajaynaynaa inaad ku guulaysan doontid oo ilaah kugu guulaysiin doono social media ma isticmaasha adiga saas ku tihin maya social media maya ardayda waxaa lagu xantaa xilliga imtixaanka markuu soo dhaweeyaa in wax akhriska ay bilaabaan adiga kuwa ardayda ma ka duwantoo timetable ma leedahay haa waqtiga wax akhrista way leedahay arday waxaa jirta xiisadda inay carqaladayaan isku dayo haddii adiga aad ardaydaas ka qaybaheen
maybe laga yaabo in saaxiibada ay sameeyaan ama arday kale oo waxbarashada ku jira ay sameeyaan maxay tahay fariinta u diraysid ardayda macallimiinta in xiisadaha ay ka arqaladayaan isku dayay macallimiinta 4 daqiiqo ay haystaan ardayda waxaa ula taliyaa inay qashqashaadin ee waxooda ay bartaan waalidkooda inay wax soo direen inay wax bartaan waalidkooda sidee u anfacaan markii dambe waa inay wax bartaan gabdhaha inta badan waxay dhibsadaan oo inta badan dadkeena halheys u ah gabar waxbarashadeeda jikaa u dambayso waxaa jira gabdhaha xaafadaha jooga oo aan waxbarashada ku lug lahayn gabar ayaa tahay waxbaa baranaysaa gabdhaha sidaas aaminsan niyadooda ku jirto maxay tahay fariinta u diraysid waxaa ilaahay waxa aaminsantiin waa qalad gabar wax barato waa bulsho wax baratay gabdhahana ma aan inay jiko way u dambaysaa beema laakiin waa inay wax bartaan arday waxaa jirta iskuulka loo soo dira laakiin iskuulka aan soo gaarin dhaxdaana ka maqan xaafadeena aad jirin xilli adag iyadoo lagu jiro waalidka la ogyahay sida lacagta oo iskuulka ku dhaganay ardayga oo ku soo shaqaynayo maxay tahay ardayda sidaas sameynaya baaqa u diraysid waxaa dhihi lahaa haddaad wadadii ku ciyaarto hadhowta saalax cabduqaadir sheekh mukhtaar maamulaha iskuulka tusma primary secondary school ustaad waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka madasha waxbarashada ee telefishinka tusma t v بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد إن برنامج كان وحبرشة أو مارته تسمو تي في إن هذا أقوله هاي وبرنامج مارته ما شاء الله هذا في عن مركز الله في سنك وحبرشة إن هذانا تسمو مقع عصا هذا وذاك نابو أنا جو حنونه تسمو برايمري أند سكندري سكول أدين كنا واحد هين تسمو تي في وأقوله برنامج معنا ustaadii wax walba oo la bilaabayo marka hore aragti ayaa ka horeyso in wax horta fikradda ay imaataa kadibna fikraddii lagu dhaqaaqaa sidii waa ku bilowdeen iskuulka tusma t v adigoo dib noo xasuusinayo bal habka aad ku bilowdeen iskuulka maanta aynu dhex joogno ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare aan soo aragnay saacadihii aan iskuulka aan ku sugnaynay bal dib noo xasuusi maasha allah waa su-aal muhiim ah bulshaweynta soomaaliyeedna maaragtay inay ogaadaan loo baahan yahay ha joogaana waddanka ama ha ka maqnadaano macalin tusmo magacaas tusmo agaasinkeeda waxaa iskale macalin saaxiibkay ah marna walaalkay ah xarunta labaad hadeertaan oo maaragtay macadkana maamulo ka ah lagu magacaabo maxamed ciise maxamed oo ku magac dheer d ayaa magacaan lahaa awal maaragtay agaasinkiisii barnaamijkan magacan tusmo wuxuu kasoo bilowday maaragtay private xaafadan howladaha uu ku yaalaa bareebadkaas ilaa hadeertaan wuu furan yahay wuxuu furan yahay ku dhawaad 6 sano uu furan yahay saddex dhalinyaro oo maaragtay isku awaawashay in bulshada ku dhaqan degmada howlwadaag iyo hareeraheedii isku hana qaaday inay maaragtay aqoontooda wax ka bedelaan ayaynu nahay aniga oo ah saalax cabduqaadir sheekh mukhtaar oo xaruntan baranjiwan oo maaragtay macadkan maamulaha ka ah baranjitugana uu ka yahay sida hore ah kugu dhawaajiyo macalinka agaasinkiisa uu leeyahay magacan fikradda lahaa ustaad maxamed ciise maxamed d iyo macalin saddexaad jiro oo maaragtay oo asagana qaybta noo qaabilsan oo dhanka waxbarashada agaasinkeedii noo haayo iyo madaxa imtixaanaadkii in badan maaragtay oo ku shaqo leh ustaad amiin cumar muudey aa lahaa asagana xaruntaasna wuu ka shaqeeyaa xaruntaana wuu ka shaqeeyaa maalmaha qaarkood halkaan uu xiise ku leeyahay maalmaha qaarkood halkaas uu xiise ku leeyahay adi labada xarun u dhexeeya asaga in badanna maaragtay fikradaha waa la isku darsadaa marka tusmo wuxuu kasoo bilowday bareefad uu kasoo bilowday markii 2 sano camal bareefadka uu furnaa ku dhawaad 2 dufca ama 1 dufca maaragtay ay ka qalin jibisay ka bacdi maaragtay waalidiinta ku tiirsan tusmo bareefad ayaa waxaa noogu imaaday codsi ku aadan dhanka macadka in la balaariyo ilaan anoon iskaa faalinaynin waxaa tayadiisii sareysay maaragtay bareefadka ardayda markii luuqadda afka soomaaliga iyo xisaabaadka markii laga soo dhiso waxaan loo wareejin jiray maaragtay macadada anaga nagu hareeraysan lagu wareejin jiray waalidiintii cawash soo gudbiso waxay dhaheen maaragtay markaa idin keenin oo bilowga uu ahaa iyo markaa dhisteen oo maaragtay macadka u wareejina maaragtay isbedelkii hataa maaragtay oo
isbedel weyn laga sii dareemahay leeyihin marka adinka bareefada hadaad dirtaan tayadiina saas ay u sareyso haddii macad aa furtaanna maarata aan aaminsannahay in badan maarata in tayadiina aad sii laba jibaaraysaan niman yahow dad ragga had dirtaan 3 qofoodoo isxilqaami karaa tihiin oo maaratay hooshana maaratay u dhabar adeegi karo oo maaratana sii wadi karo macadna maarata inaa wadi kartaan aan ognahay noo fura macad hanuula wareejiyo ciyaalka markaa dhistaan macadkiina ku wareejiya sidii inta meel kale u xawin lahayn aniga ilmaheenaan isbedelkaas balaarnatirkoodii maarata uma fiicno macalinkee barteena uroon ilaan waalidka inay ku arkaan haa farqi inuusan jirin si tayada ee uu sii laba jibaaranto ra'ayadaas markaa aruurinay kabacdiya maaratay aan isu imaanay markaas waxaa noo soo baxay shirar badan kabacdi waalidiinta qaarkood aan la tashanay wadatashi balaaran aan sameynay kabacdi in macad aa furno macadkiis qaabkaasaa lagu furay sanadusiyeedkii 2015-16 maaratay aan furnay macadkii falilaahi alxamdu system nidaam maaratay iskuulka u deganaa jiro labada xarunba uu ku wada shaqeeyo nidaamka aa ku furnay iskuulka nidaamkaas waa maadaama barefad aad kasoo wareegtoon maxad usoo guurteen ma jiraan waxay cidina ka caawisay maxadka maadaama marka iskuul weyn la furayo caqabado badan ee iska jiraan oo haddii ahaaleed goobtii laga furi lahaay tashiilaadka waxyaabihii oosho lagu bilaabi lahaay ma jiraan cidina ka caawisay waa su-aal muhiim ah maaratay in laga jawaabo maaratay ay mudan tahay macadka markii aan isku daynay inaynu macad furno horta saddexdeenaanba macado kala duwan aan ka shaqaynaynay galabkii 7 saac ka bilaabo ilaa iyo 2 saac iyo barna bareefadkaas la isugu imaan jiray bareefadka waa 2 qol macalinna maarata maamul ahaan oo noo ahaan jiray oo maarata receptionka oo noo fadhiisan jiray 2 macalinna way shaqayn jirtay waa la isu bedeli jiray qaabkaas ku wada shaqayn jirnay haddeertaan qof ani aa dhihi karo qofkaasaa maarata faasilaad dheer aa ka hesheen oo maarata macadkaas ku cayo maarata ma jirta macalino iskaashiya macadkan lagu furayo dhabar adeeg dheer kabacdi maantan horumarkiisa sida adiga maarata aa aragtaybo waa maasha allah waa laba jibaarkiisii iyo qaabka waxbarashadiisa ee tahay akhlaaqda ardayda ay ku dheehan tahay waraysiga aa ka qaadaysay intaba waa ka aragtay mise dafcad ayaa qalin jibisay intaas waqtigaas kooban aad haysaa si fiican su-aal muhiima waaye 2015 and 16 up to now 2018-19 haddaan ku jirnaa haddaan ku dhaho 5 dufcaa qalin jibisay ama 2 dufcaa qalin haddaan ku dhaho beenaan sheegay maxaa yeele waxbarashada sideeda waxay u baahan tahay nidaam ay u baahan tahay ee system ay u baahan tahay istaraatiiji u baahan tahay iska orod macquul ma noqonayso runtii anoon kalaankeyga been aan kugu dareenin maalinkii iskuulka aan furnay ardaydu bareefadka noo dhigato waxay isugu jireen arday macad dhigato iyo arday macad aan dhiganay isugu jireen waxa anaga markasta aan ka amba qaadinin waxay ahayd kuwa macadka aan dhiganayna ahayd waxa soo gudbiyey rasiidka bilawga uu ahaa markii aan iskuulka aan furnay aan ku furnay iskuulka 3 fasal camal aan ku furnay ku dhawaad 54 arday camal aan markaa furnay iskuulka oo macadka ka soo warjino bareefadka uu soo bareefadka ka soo warjino macadka uu soo gudbinay ahayd arday waxaa jirtay macalino bedelaha soo qaadanayna oo maarata form 3 iyo form 4 kuwa ahwey jireen form 2 ah jira form 1 kuwa ah jira noo imaanayay na soo booqanayay nidaamkii system markii la dhacin ka bacdi dhahayo maartay aniga bedel aan soo qaadanay macalino noo fura maya marna maartay isugu anaga uma furin inaa cid aan maartay arqaladeeno aan dhabarjimo asmeena isugu uma furin teedi kale waxaan ugu talgalnaa dhahnay ardayga anaga maartay aan soo barbaarsanay inaan dugsiga inaan maartay la tagno shaxdiisii oo maartay isku dabaridan basic ka soo anaga ugu soo bilawnay akhlaaqiyan noo diyaarsan noo canaansan kalaanki anaga dhaana kalaan aan soo korsaareynin dhan walba ka dhisan inaan la shirtagnaa rabnaa dhaana anaga dugsiga sare ilaan dugsiga sare sida maanta aa ku warqabta maartay waa caqabadiisu iska balaaran yihiin arday qaarkood aa jira maartay oo maartay iskuulka isaga tagaayo ayadoo cudurdaar la-aan ah isaga tagayo iskuulka akhlaaq darri iska jirto laakiin canugaagi adi aa soo barbaarasto hoose iyo dhexe aad ka soo saartay agtaadu ku qaangaare kaas ma kugu manyici karo jaawo ku waabsan yahay adiga marka waalidkiisiyaa tahay jaawo wuxuu ku ictiqaasan yahay in aabiisii labaad aataan uu aaminsan yahay laakiin arday qaangaar ah form 3 soo bedeshto uu kugu imaaday wuxuu yahay ma ogtahay waa maya marka inaan lacag fiirino waxaan ka doorbidnay in tayada canuga aan fiirino arday tale aan soo saarnaan ka doorbidnay runta haddaan kuu sheego intaas dufca aqliisa kuma dhahayo 2015 aan iskuulkan iyo 16 sanadka aan furnay 8 waxaan noogu baxeen 18-19 oo sanadkan dhamaanaya arday dartan awreysanaysa form 1 waa form 1 kas wax ka sarey ma hayno laakiin haddii oo maartay hayaxda dee ahaan lahayd sanadkan form 3 iska dhaafay dufcadii afraad iyo saddexaad ay iga qalin jibin lahayn aniga marka bulshooyinka Soomaaliyeed waxa u cadeena tusmo in waxbarasho tayaysan
ee markasta ay ugu imaanayeen iyo akhlaaq ay ku dheehan tahay ardayga bedel noogu imaanayana arday maarata waalidkiisa uu la imaanayo akhlaaqiyan u diyaarsan yahay dhan walba ka jeekana inuu yahay xiriir la sameynana uu yahay taas ugu talgalnay ilaan haddii arday kasta iska qabsano hadduu foonfoor yahay foonfoor kaale iyo imaa lacagtaada aa kaa fiirsada haddaa dhaho caqabadii hadhoodii noqohe magaciyaa meeshan ku dhumaayo taya ahaan arday wuxuu yahay ma dareemi kartid beri markuu dhaco sumcad dare iskuul ku noqeeya marka hadda sanad dusiidkan dhammaanayay eydka markii ardada ay noogu baxayeen maasha allah xitaa dalada naftirkeedii maaragtay waxay noo keentay buugaag oo maaragtay abaalmarinay noo keentay iskuul cusub oo eydkiisa ugu horeeya qalinjibinaha ardaydiisi markiis intaan la eg maaragtay la imaanayo waa markii noogu horeeyey waaya dheheen maasha allah xafiiskan aa kula hadlaya igu soo booqdeen oo maaragtay aa ku qaabilay maasha allah si fiican nala shargareen waxbarashada qaabka ku wadno systemkeena wixii wareysi nagala sameeyeen markii waxayna anagu qancin kabacdi taa noo keeneen buugaag oo maaragtay ardada muhiimadooda maqaarka looriya ay kamid tahay haa marka maasha allah taasaa jirto haddeetan foomanaa leenahay foomanka laakiin wuu noo dhammaystiran yahay fooman oo dugsi sare ah heerka dugsi sare foomana noo jooga dugsiga dhex wuu noo dhammaystiran yahay dugsiga hoosena wuu noo dhammaystiran yahay iskuulkana gelinka hore nugu shaqeeyaa gelinka dambe nugu shaqeeyaa taasaa jirto daladoo ka tasinaya iskuulka tusan primary maasha allah midda ugu horeysa la isweydiinaya xitaa waalidka markuu ciyaalka u keeno ku weydiinaya waxay tahay iskuulka horta dalad ma leeyahay boorkeeda ay dhagan waa kinaa falilah alxamdu safe daladaasaa ka tirsanna anaga waa dalad maanta maaragtay la aaminsan yahay oo shahaadooyinkoodii la aaminsan yahay xitaa anaga aan ka dalbanay dalada safe markii eydka ay noo qalin jibinayeen si aqoonsigeena heerka uu la egyahay aan waalidiinta aan u tusno xaflad caddayn xaflad loo baahan yahay sax waa xaflad ballaaran jaamacadda soomaaliya ugu dhigna ardayda waa kuwana boorkoodii adeetaan ardayda qalin jibinaysay oona maaragtay aan ugu qabanay waalidiinta dhammaan ardayda ku tirsan macalaa kuwa degmada hulaag degana isugu yeernay oo maaragtay tusnay shahaadooyinkooda daladaan kasoo qaadnay sideedaadka maanta iskuul ma jiro hadduu jirno waa dhif iyo qaliil boqolkiiba 20 aa la heli karaa iskuul bixinaya dugsiga dhexe shahaadooyinkiisi inta badanna waxay ka cararayaan haddii shahaado aasi si simple kaaga taga ardaygaas oo raadsanaa taas anaga maba aaminsanibo ilaan ardaygan waalidkeenana qanaaca ka haysanaa ardaygan wuu nuu qanacsan yahay waxaa naga go-on haddii aynan tusmo primary and secondary school wax ka bartaa tan kale arday kalsooniya ku qabnaaba anaga inuu naga taga maba aaminsana anaga sidaa daraaddeedii shahaadooyinkan kasoo qaadnay daladii oo safe oo saxiixan yihiin oo maaragtay ay cad yihiin si waalidiinta aa u tusno horumarka iskuulka uu ku talaabsanayo iyo aqoonsiga heerkuu la egyahay marka insha allah laba jibaarkeena wuu sii soconayaa ilaa iyo maaragtay oo nafta ee nagu jirto bulshada soomaaliyeed inaan u shaqeyno diyaaraan unahay mar kastaba sidii waxaa jira qoysas danyara haddana jecel inay caruurtooda ay waxbarasho ay geeyaan haddana xaalad dalku waa ka warhaynaa dhammaanteen oo in aysan jirin shaqooyin oo waalidiinta si adag laga yaabee in uu la tacaalayo wixii ay cuni lahaayeen ka tusmaa primary secondary school ahaan ma jiraa qorshe ugu tala gasheen sax waa su-aal muhiima waaye maalinka aa fureynay aa qorshahaas ku darsanay in qoysaska danta yar tabaalaysan oo xitaa qutuliyooyinka maaragtay uu dhib iyo rafaad uu ku yahay in waxbarasho aan u furno caruurtoodii haa waalidkii noo imaadaan noo dan sheegtaa systemkaas waa u bandhignaa aa dhahnaa hooyoy aabow maaragtay haddii aanan awoodi karin broblem ma lahan caruurtaadii haddii aa awoodi karta 4 cunug markay yihiin oo kale 2 iska bixi 2na fariya kugu dhigtaano haddaan awoodi karin 4toodii waa kuu qabanayna waa dhahnaa maasha allah arday badan adeertaan saas isu ku dhigato maaragtay 20 May ee gaarayaan way jiraan xitaa dokumentiga ku tusi karaa waxay inta arday freega iyo oo maaragtay qaabkaas ku dhigato iskuulka galabkiina qaar aa jira saas ku dhigto subaxiina qaar saas ku dhigto way jiraan ayagana maasha allah social media inkastoo ay dunida maanta leeyahay teknolojiyada ay horumartaybo sida aan la wada soconno haddana waxay wadataa faa'iido iyo khasaaro macallimiintu waxay dhib ku qabaan teleefoonadan casriga ee lasoo saaray in galaaskiisoo ku jiro ardayga mahaybi oo isticmaalo internet ku jiro waxaa la yidhi qofka biniaadanka 2 qalbi ma lahan oo hal qalbi uu leeyahay in macallinkana oo la socdo teleefoonkiina internetkiina oo dadka kala hadlo isku macquul ma noqonayso ma jiraan iskuulkiina nidaam mid kaga yaala isticmaalka telefoonada maasha allah su-aal muhiima waaye telefoonka 2015-16 markaa iskuulka aan furnay
sanadusiyeedkaas teeramkiisi markii la gaaray ilaan 6 months waa moogtaa marka 5 months casharada la qaataa 1 month labada bilood oo fasax u tagay markii la fiirsho waxbarashada 1 year waa la 1 year ma ahan 10 months waaye laba bilood oo fasax meesh ku jiro markii teeram aan shaqeynay ka bacdi caqabadahaas aan dareennay saddexdeenaan ustaad maxamed ciise maxamed di anigoo ah saalax cabdiqaasim mukhtaar iyo ustaad amiin cumar muude saddexdeena oo isugu imaanay kulna ka wada qaadanay ilaan ma aniga kaliya go'aan ma gaari karo ها go'aan midaysan inuu maarta golaha inuu ka soo baxo waa go'aan midaysan aleena aragti la wadaaga waa aragti dheer markaa wadaagna ka bacdi waxa go'aan soo saarnay wax taleefan la dhahayo in isugu laga xakameeyo TV-ga maalinka maartay la daawanayna waalidiinta hadday daawanayna maartay ayaa ku marxaad fur doono diiwaan gaarsiin in sharciga iskuulka ka yaalo taleefan wax la laayo taleefan waxa ogna ustaadin niclaha ogolnaa bis muuqaal aan lahayn niclahaasna waalidkan uu soo ilaan wadanka waa xaaladdu ka warheena taleefan dhan ma la wada mamnuuci karo taleefankan oo maartay weynka ah oo caqabada keenaya Facebook iyo waxaas ay ku mashquulayaan iskuulka internetka la iskuulka mamnuuc ka yahay in xitaa digrada ka soo saarnay oo ah ardagii lagu arkaa taleefankaas in laga qaado haddii isniin aan ka qaadno isniinta kale inaan siino isbuucan waad la saaro xitaa waxa arnay arday qaarkood markay qarsanayaan aan ka qaadno waalidiinta inay noo hambaleeyeen dhahan macallin saalax oo maartay ka hay haba noo siinin macallin oo ka hay caqabadiis anaga waa ka celin weyno ka hay ayagoo dhahay taa maartay farintis weyno soo gaartaa marka macallin oo waxyaalaha iskuulaadka deertaan oo dariska nala ah aan kaga bedelnahay kamid tahaybo taleefon waxa la dhahay anaga mamnuuc naga yaaniga taleefankan oo maartay oo screen touch-ka ugu daran iskuulka mamnuuc ka yahay in ardaydu inay soo qaataan mamnuuc ka tahay taleefkaas niclaha waalidiintoodii xaalad walba maartay ku soo wajahdo ardayga oo kala xiriiri karo waa u ogolnaa caadi waay lacagta bisho kale markuu tuurayo kale ilaa nadeetaan EFC wix loo batay inuu tuuro kale wuxuu soo qaadanaa niclahaas soo qaadanaa ama hadduu niclo u sanaysan hooyaa soo ama abaa soo tuura lacagta taleefankaas lacagaha ka tuura hataa ma loo ogolaanayo taasaa ka jirta marka maadaama aan soo hadal qaadnay taleefoonkaas waxbaa la xiriiro waxaa jira ardayda ilaan ardaygan guriga ka soo toosaa in waalidkii oo soo diro iskuulkiina oona soo gaarin gurigiina ma jiro dhaxdaan oo ka baxo iskuulada markii la yimaado jaamacadaha la arkaa in maybe sanadba ama semesterba oo imaaninbo oo iska maqan yahay laakiin guriga subax oo ka soo baxo si arrintaasi loo xalliyo xiriirka aan leedihin waalidiinta intuu gaarsiisan yahay maasha allah su'aal muhiim ah waaye xafiiska laba taleefan uu leeyahay mid waa maaliyadda kii lacagta waalidka laga wici lahaa waaye midna leelankan waa kana ku muuqdo waa inta kale ku muuqdo leelankan waxaa kaliya iska leh ardayga maanta at least attendance officer leenahay in register fasalada ay leeyihiin jiro in waxaa jiro maamulka ku xigeenaa jiro iskuulka ka shaqeeyo galabkii shaqadiisa subaxii shaqadiisa ugu horeysa waxa waaye markii daabuurka laga kala xaroodo fasalada la galo inuu soo wareego ardayda soo xaqiijiyo inta joogtinta maqan in markuu soo xaqiijiyo kabacdi wixii maqan uu arko uu imaana leelankaas waxa laga wacaa kaliya arday maqan bis waa leelankaas lagu wacaa taleefanka lacagta ma laga waco waalidka markii taleefanka lacagta loo waco lacag ma laga rabo soo dhin taleefanka ilaan hadaro ma qabanayo laba taleefan oo kala yihiin niclahaas oo lafta taleefanka oo maartay iskuulka ay ku jirto waa lacag kaliya lacag markaa weydiina hadaro waan ugu adkeeyo iyo na qaban laakiin leelanka waalidiintana way ugu yaqaanaan leelanka dumar u soo dhacin waalidkiisii in ardaygiisii dabagal waayo uu ogyahay leelanka markaas uu qabanaa leelankaas kaliya waxa u keenay in aan kala xiriirno ardayga maqan midka lacagtana waa mid caadi ah maartay oo laf iskuulka uu leeyahay waaye kaas markii lacagta ay soo daado kale xitaa arday banaan ma soo bixin anaga waalid toos anaga wacanabo ila waalidka asaa ku keenso soomeen arday lacagtaas ma iska bixinayo waa may waalidka baxsho arday shaqo ma ku lahaabo shaqada loo soo dirsaday waxay tahay qoraal iyo akhrin waa isaga taas loo soo dirsaday in arday aa soo bixino banaanka inta ku qabsano lacagta iiburiyaa iyo waxaas anaga ma dhahno ardayna ma cirino ma burino ma shaqeeyo ardayga qalad wax ardayga lagu qabsadaba waalidka daarigta au wacna anaga haddii lacagta ay soo daahdo waa 5 ilaa 10 lacagta lagu bixiyo sida caamiyan ee tahay maartay hadirtaan iskuulaadka shaqooyinka caadiga ee tahay haddii 5 ilaa iyo 10 kana maartay haddii gaartana lagu waco saas sameynaa marka taleefankaas leelanka noo diyaartana xiriirka waalidka ku xirnaa insha Allah ardayda qaar waxaa jira galaaska soo xaadiro xiisadna aan dhaafin
iyo arday soo gagambiyo oo marna imaado marna imaanin haddana ardayda mar walba imaado waxay qaarkood ku doodayaan waxay leeyihiin ninaa imaan jirnaa kaa buunda badi maybe laga yaabo in imtixaanka qash oo ku mooday ardayga maqnaashahiisa oo bato saameyn ma ku yeelataa imtixaanka qasab waay saameyn uu ku maqnaashaha iska dhaafay ustaadii haddeertana kuwa cadeynaabo anaga systemka noo degana wuxuu yahay ama ardayda ka dhacsiinaabo soo maqnaasho iska dhaaf soo daahitaan hadduu xitaa ardayga xiisada koowaad 10 daqiiqa ugu yar hadduu ka habsaamo waxaa aaminsanaha xiisadaas koowaad inay dhaaftay uusan la qabsan karinbo sida cad hadeertaan dadka khubaraha hadeertaan ka warahaayo waxbarashada way ogyihiin macalimiinta dhib ku qabaan ha oo soo gala dhaxw maraya mala socon karo meel ka bilaabo ma lahan ilaana macalinka waajibaad saarna wuxuu yahay xiisada markuu koo galo 40 daqiiqo waay 10 daqiiqo ugu horeysa waxaa waaye concept casharadii la dhaafay inuu dib la isku xiro laba cashar su'aalo uu ku weydiiyo way u manajgeysanayn waqtiga ها مركي عشر بالأذن لقاتا جاء طبعا دق أوريس مركو أرديان أو هبسامو جاء محادا في اسكو حركي لبادي 10 وادا فيكو سؤال اللي بيدين لها ويدافت ما لو يدين كرو ودافع وحكو إيمانا أرديو معنيك يوم أرتي أو 10 عصب قراي وقو إيمانا جاء ميلو كلا قبسنا مالها مرك خاركود وحاد عيسو إن مارتي معنيك 10 شرحة تا مارتي وريريو مارتي باب وسوقر جرا مع المسوقلي كراي معنيك ماشي واحد مرة يملك مارتي وكورر تلاقيها ولا جيابا إن أنا جا جنبس سوداتان كورتنوع عسوايبه جنبس ك خرش على أنا نوصل مثلا أرضك هدو جنبي والد إنه نسوي خصب واحد كو والد كيس أنتوا سنسوي عدي أنا جا عنه أو مركز والد أردك مركز دون وشيء أنا جا ماني كلاد مركز مع عقبت المرسينا هذولك والد كيس يصور مرة يصوبعه صبحي أنت ندابرك لقال أنتوا يصوبعوا يسوي أو ده معنا هاي هبلاي ما أنتوا حنوسنتاي هبل ما أنت أنا أعمل ودرس هو ودرس كذا خصب واحد والله بهنكرها أوت كلام بهنكرها محل بهنا ما رهنه لكن واحد كوست النظام يلين أسرع من مهم والدين توحي أكيهين هدي أنا تلفن كي أيجو وكسوهر مرة إن مالك لا تعونك عقبت أنا أمرسينا شرعي ومرة خصب واحد هدي أسرع أو يقصر والدك ويديو ده هاي معلنا هاي ما أنت أنت سوى أنت صار عادة تعسية عنك أنا أو بعض دولة فلله الحمد والدك هذا الكيس هالكرسار ملهن أنا والدك أنا قوين كرسار ملهن وكاس سجع فينا أرضي وحكو خصبين هاي إن 10 سنة ضعفي مالكو إمادة بري قرط ملعبه والدك سهو قاعد فصح ميوسون قادن بريجا صدون كدقيقة بريجا 10 إنه راديوه إنه جوري خصبين مالك هافو جوري هافا دي مسامين مالك لو ددن مركو إمادة بريجا ملا هدن بريك ملهنا إلا 10 مالك أو مقنا وكسو كمبلت كرايو كامل وكديجو بريك وحلا هاي ملهنا والد كيس فصح هو قاضو أم يوسون قادن تسان مرت أنا نودكن وقدام بين استادي إذا إنترنت كي وحباس أنا كسو جبيني إيو أرديدا عقبتها وحبرشة إيو إن قاركود إسكاد عدينا إن وحبرشة والدكو كقصبيو و إسكاد سكولك أما إسكاد جامعة دي حاجة غير إسكاد جوج كدمنا جوري إسكاد لعبة سوشيال ميديا سو كله أردي إنه وحبارو وجوجل وكله معلومات كوكيتسن وقدام بين تي باقة أدريسيد أردي دا سكول كا تسمى بريمير سكندري سكول iyo guud ahaan ardayda Soomaaliyeed wax barashada ku guda jiro iyo qaabka haatan ay u isticmaalaan social media iyo sida teknolojiyada ay kaga faa'iideysan karaan maanta maadaama cilmi badanna uu ku jiro sidoo kalena waqti lagu dhumi karo hadii dhinaca wanaagsan loo isticmaalana iyadana wada kale ay tahay bal dardaarankaad ugu dambeey ما شاء الله سؤال مهم وهذا وما استاذي إن مركي أنا social media negative نقوليه هاي positive نقوليه anything شيء كستوي حوليه هاي positive نقوليه negative ولا صار أبو إن مركي وحالة في رشا مركي استوى compare السؤال سميها وارس بريها لما ودي كي positive كبدن كي negative كبدن على فيريا أصول أو وحبرشة هيرك الدنيا لا هاي hoose dhexe iyo sare waay hoose iyo dhexe markii la joogo aniga ma aaminsan ardayga internet u baahan yahay ma aaminsanibo maxay yeelay hadda maamulna waa ahay macallin xisaabna waa dirtaan waa ahay tusaale ku soo qaadana in aaladan scientific loo yaqaano baashan oo loogu shaqeysto xisaabta loogu shaqeysto calculatorka
arday koowaad markuu yahay ilaa sideed ma loo ogolo xitaa fiiriya sideedaadka markuu yahay waxaa imaanaya hataa xisaabaad oo dugsiyada qaarkood bay soo galayaan haddana ma loo ogolo maxaa loogu diidaa mataqaanaa aaskiisi inuu gacantiisa uu ku tashtaa loogu talagalay iyo maskaxdiisi inuu isbaraa loogu talagalay form 1 maalinkuu noqdo ilaa form 4 scientific waa loo gelaya free waay maxaa loo yeelaa mataqaanaa sababta loo yeelaya waxay tahay dugsiga sare markuu usoo gudbo levelka jaamacaddu u dhawaaday taati lamid ah si tii oo maaragtay oo kuleetarka ka soo qaadee taati lamid ah waxaan dhihi karnaa ardada soomaaliyeed inta waxbarashadii ay ku jiraan social mediaha maba loo baahno koowaadkiisa ilaa iyo sideedaadkiisa ama dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose ma loo baahno ardayga social media wuxuu u baahan yahay asagoo xitaa ka fiirinaya mar walba dhanka positiveka oo aqoonta waxbarashada dhankooda asagoo karaadinayo foomankii la marka markuu yaa loo baahan yahay hoose iyo dhexe macalimiinta shaqeyso macalimiinta inta badan shaqeyso adoo hadirsan loo keenaa laakiin markii oo maarad dugsi sare uu soo gudbo kale maadooyinka cilmiga soo kordhay jaamacadda loo diyaariyaa waa xitaa ardayga markaas wuxuu kala baxsanaa hataa oo kala bixinaa takhasuska markaas uu dooran lahaa hataa markuu dugsi u yahay maarad uu kala bixina maanta aniga waxbarashadeenaan nidaamkani Kenya kuma salaysno Kenya markii dugsiga la gaaraa waxaa la sheegaa marka inta badan in arday takhasuski markaas loo leexiyabo takhasuska ku qaato asoo darsi jaamacad inuu tago aniga taas ma ahan aniga waxeenaan general waaye dugsiga sare 4 sano oo maartay straight line oo arday ku qaato horta muhiim waaye kow labo social media dhanka positive-ka asoo ka fiirinayo waxaa loogu talagalay in casharadii uu ka daraasiyeeyo youtube-ko kale iyo inuu ka galo kale iyo google kale inuu ka sii raadiyo kale iyo muhiimadeeda leedahay hadeertaan foomanahan anaga noogu soo horeeya inta badan waa ku wacyigelinaabo xitaa nidaamka loo baara aa tusnaa xitaa si loo baara tusnaa waa la tusaa macalin technology dhigaa noo joogo computer ku takhasuso noo joogo macalimiin ardayda foomanka maarata markasta taa kuleeyo habka loo baariyo waxaas youtube-ka dhanka wanaaga in laga fiirsho kale iyo maaragtay maanta haddii oo maaragtay aa geliso muuqaal macalinkii wax uu sharaxay iyo kii youtube-ka inay isleeyihin in kale inay ogaadaan iyo waa ku wacyigelinaa taas guud ahaan tusmaha aan kasoo tago ardada soomaaliyeed dhammaan ardadeena waaye wixii maanta ani ardada tusmo aan ku wacyigelina waxaan ku khasbanahay haddii aan ahay macalin soomaaliyeed haddaan ahay dhammaan ardada soomaaliyeed inaan ku wacyigeliyo waa ku khasbanahay maxaa yeele dheh ardadu way siman yihiin tusmaha ay dhigtaano ama outside ha dhigtaano dhammaan arday waay soomaali waay waxay kala bedelay maanta ma jiraan dhammaan ardayda soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa anoo fursadan qaaliga ka faa'iideysanaya maanta tusma TV ay siinayso ardayahay waxbarashada inaad ku dadaashaan isku daya kow labo social media iska yareey isticmaalkiisa iska yareey haddii aad tahay dugsi sare u isticmaal dhanka positive-ka ah dhanka negative-ka u isticmaalin waqtiga shay qaaliya waa maanta haddii ay tahay maaragtay jimcaha haddee tahay beri sabtiya noqoya jimco ma kusoo laabeys jimco cusub waay inaad waqtiga ka faa'iidaysto isku dayaan leeyahay midda kale waqtigaaga inaad daqiiqad u xisaab inaad xisaab isku day second haddii second aa u xisaabin karina daqiiqad u xisaabe haddaan u xisaabin karina maaragtay hawar u xisaabe haddaan u xisaabin karina maaragtay maalin maalimaad xisaabin karina gelin اسبوع اسكو تجابي حساب كل حسابتن وقتك انه كغوراي اديga ku xisaabtan marka ardayda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waqtiga maarta socdo waqtiga alwaqtu ka seef Allah waqtiga si fiican marka waqtigan maartay wuu socdaa waqti adiga maarta kula tashanay ma ahan ina ku daas isku day shalay hadii ahayd in form 1 maanta form 2 wata bari form 3 aan noqohay waa ina ku xsantaa markastaba gadaashaadana fiir hortaadana fiiri taas aan dhigay ardayda Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi oo ahaa maamulaha iskuulka Tusma Primary Secondary School Saalax Cabduqaadir Sheekh Muqtaar Ustaadi aad iyo aad kaaga mahad celinayna waqtigaada qaaliga aan noo hurtay sida aan nooga aqbashay in barnaamijka madasha waxbarashada ee Tusma TV aad wareysiisay ما شاء الله أستاذي أنا وأنا همبلينا تسمى تي في هذا نوح كلا سلاف يا ما أنت مقعيا وذاقنا بانجا وذا فرحت كل واحد أنا تسمو وهل فاميليا وذينا عليه كرناو ما شاء الله هذا أقول فرح سنة أستاذي يسود وهذا إن كل ما دان كل ما كسي بلارنا يلا ما سودي دونا إن شاء الله حتى وعاد كوا عزومي كرنا كوا عزوم دونا إن شاء الله سديدات قدرتان نوجوجو A و B إن حفلة هذا كوا عزونا هذا إيد كنا ضعفي أو أيضا نهي إن شهادتي سيفا قدون سيني تن أذيك ومرقاتي إنه هتين أو قدون سيني كيف لنقاذا إن شاء الله
wili labada xarunta aan isku darnay insha Allah branch 1 iyo branch 2 mar isku ka kooban yahay bareefadku ku madax banaan yahay kaas waa bareefad markii macad laga hadlayo laba branch waay branch 1 iyo branch 2 ay kaliya marka labadaas branch insha Allah waxaan rajaynaynaa in ardayda Soomaaliyeed waxyaabo badan inay ka faa'iidaan horumarka inaad maanta maartay anaga aakeen inay naga faa'iidaan in badan aan rajaynaynaa waalidiintana waxaan kula dardaarmi lahaa mar kasto ubadka Soomaaliyeed markii xaafada ay joogaan isku daya inaad ku wacyi gelisaan akhrintoodii iyo maartay la socodkoodii dabagal inay ku sameeyaan inay Soomaali waxay raadaan fartooshaleedii iyo fool madhigaas marka farkaleeda fool madhaqdo waraa loo dhahay discussion loo baahan yahay marka haddii anaga iyo ayaga aan iskaashano waxaa soo bixi karo oo cad su'aal aanan ma ka taagnayn shakla geli karin arday wanaagsan oo soo baxa laga rajeeyaa tayo leh marka haddeertaan waa isla wada shaqeynaayo wada shaqeyntaas si la wajibaaro waalidiinta kale outside-kiga iyo iskuulaadka outside-kiga afarintaas aa u gudbina inay wada shaqeeyaan ardayga ku warqabo maanta arday Soomaali oo tayo haddaan soo saarno wadanku wax u taraa berri wuxuu ku salaana wadanka waay wadankeena maanta waxa maartay oo caqabadaha wax u horseeda waxa dhigi karnaa waxbarasho la'aanta waa guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha waxbarasho ee telefishinka Tusma TV oo toddobaadkan idinkaga imaanay iskuulka Tusma Primary Secondary School oo ka mid ah iskuulaadka ku yaala caasimadda Soomaaliya Muqdisho tan iyo toddobaadkan kiisa xigay inta barnaamij ceenkaan isku arki doono waa Xasan Cabdullaahi sidaa ay nabadgelyo